بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي waxaa la yiraahdaa Abdiqani Sulub Jibriil waxaan ahay korneyl ciidanka daraawiishta ah markaan arkay marxaladaha dalku yahay anigoo baan saaka saxaafadan iyo warkan ay muuqatay inaan qabto matalan labada siyaasi ee inagu hardamaya hadaynu nahay gobolka Cayn ayaan arrimahooda ka hadlaya labadaasi gaar aan uga hadlaya mid dardaarana waxaan u jeedinayaa gobolka Cayn lambarkow xagla toosiyay wuxuu dhagartiisa isaga ogna waynu naqaanaa siyaasadda inagu cadawga wata cadawgu inoo soo raac waa u aqoonsana diyaarna waxaanu nahay in iska celino asagana si gaar ah waxaan u leeyahay waragii ka horeeyay xilalka soo hayay ee gobolka Sool iyo gobolladeena kala qabtay siday ku dambeeyeen mid walba u fiirso noocu ku dambeeyay mid gaajo ugu baqtay Hargeysa mid dayac ugu dhinta mid sisira loo dilo sad bay ku wada dambeeyeen iyo mid xataa laga weydiin tusaale ahaan waxa soo qaadata Maxamed Cabdi Xaabsade hadalkiisa u dambeeyay wuxuu yiri man hadaa sidan moodayo dalka uma qabteen markii dambe markuu meesha ku dambeeyay waadagay isaga intaas ku filan cadawga waa aqoonsanahay diyaarna waa una isaga wuxuu u wato inaynu iska dhicino midda labaad waa dhagarta Cali Khaliif wax la eegan karo ma ah khalkhal siyaasadeed yuu inagula jira wadadkii waa khalkhaliyay waxaan dan ugu jirin oo aan waxba ugu kordhin iyo 24 saac ka dhex wada waad ogtihiin cadawga ina sanka inagu soo haya sida waaga baryaynu eegaynaa diyaar baynu unahay وما دياسنا وح قرشة يا وح حرب أو كذا قاطع وما دياسنا وح نظام يا وح ترى يا وح مسكح أو كذا قاطع وهو هذا رجال مينا مركي هو فشل مي السياسة يكون فشل مي ما مرهم يكون فشل مي إنه النجا سيدي على الشباب رجال سكوا كلام تحية صح أيوة كوضع مقالة الضوء ورا المشكلة ورا إنه التوصل عن كل ابن وقف رئيس كمان شعراضه أو حقرت كانوا شعراضه ورني كانوا محققت وردت كانوا محققت ورا شانس يودك وعلقوا ذي نام الخاتم اللي هذا مربى مشروع عنده الحين أيوة إنه ممكن لما بركوا يسيب إنه ممكن واشقين ويد أيوة سجينا كشقين ويد لما بربى خاتم إنه ممكن واشقين ويد إنه قرب تنعانيه بيه مدرسي مركز هذا العنوي USB باشغينس ونقطع وعنوي ماخر إيه وحاشين يا خاتمه والماخر معايا يستها حين بقوته نين كان وحكود سنس نين كاسر رجال وكراسي نضع وحلقود صلاة نين محبهن لأنه وحكود سنكرنا هو ماذا ورواية الوجه رواية الوجه ذلك الوجه وريريني وي كيمين وعندنا يلعبوا ينطلها يوم وينطلها الصنايع وواجب بريئة أو عدد عيدا مسوي كردي وطبعا الحقوق هذا يوم قارك عين وغير الحقوق أيوة الشركة حقها الحقوق ورما شركة نوبانين عدد واسكد عنا نوبانا ورين عدد واسكد عنا ينوبان شيرو مباني وحوايضة وأنا عبد الغني أهان هسكك العاشقين هسكك تعران وحقرت يقول تعران عدد عيدا كي المساحة هنا يقول تعران لكن هذا يهوها هيقول تعراننا هوها يمدحوينا يو سكال بان هيقول تعراننا ننكر طرق الاحترام كما يسو وذوقت هنا رجالها وجستي وتريح كجستي ولا سؤال ننكر ويسمدني وحجرت كني وغنيها كني ولا مزوت ولا ننكر وذوقت هنا توك جستي مقالة صاحبه والحلين كروا يسلك وذوقت هنا توك جستي مقالة دتك الوردة الرباطة هنا شيء حبتني نقولت لي توك جستي الدركين سيد الله اللي كانوا يهرجوا كذا وذوقت ولا نقول عن كلام بدبان على وانا عن سكب عن على وسينات ورماي روايات ما يسوهم بهايا حفظهم من على قاضية لكن على خليف المدحوين المقدرين لكن دور كيورها أيوكم فشل ما حطوا فشل ماي يونسكو كان طرحني يونسكو صار
سرنا المسكة صارنا طلاب عبد مكقالنا كو قيمين من إيه بين عليه كو قيمين من هبلايا رشيد كو قيمين من ربعتين وذاكنا وحين كو قيميننا وحقبل الأنتيس كو قيميننا هي الرواية أوله هي المسكة صارنا وحالاه dadka reer bool warna mid gadiida ilaaliyo war aynu gacmahayna kala duwan sida loo bani caadada iskaga dhicin karno sagu haddii aynu isdilo uma tahalo haddii dagaal dhaco oo xabadu ay bilaabato oo cadawga aynu faraha isla galo inagu soo socda inala geli maayo xabad waad ogtihiin oo rag baa curadadiisa iyo wiilashiisa u diyaarinaya saacadda la taagan yahay inuu fooda hore iyo furmaha hore dhigo isaga turki oo aynu garanayno waxaa leeyahay qofka shaksiga waad ogtihiin oo isaga iska bilaaba wanaagga markuu iska bilaabana wuxuu ku xejiyaa dadka wixiga wuxuu ku sii xejiyaa ehelka kale wuxuu ku sii xejiyaa qofkii kasii sareeyay wixii loo doortay waad ogtihiin ehelkii dagaalkeena ulama jiro inala geli maayaan horanayda lama geli jiro ninka oranaya weera geli jiray dee ma jirto innagu reer boodlaaba geli jira hadeerna u diyaarsan riwaayada aynu ka baxno run aan usoo jeesano dhagartaa ninkaasu maleegaya aan iska qabanno si toos aan iskaga qabanno dalkeena iyo difaaciisana aan uga diyaar garowno cali markaa reer boodlow run inooma sheegin wuxuusan run igu sheegin arrintii ilaa xilligaas talee ilamaa waqtigii la doortay 20 nin oo ciidana uma diyaarsana oo cadow lagaga hortago anigu raggii u tagay ee la xisaabtamay ciidankii carafkii iyo qaabkii loo dagaalamayo qorshihii u hordhigay ayaa ka mid ahaa wuxuu ku jawaab oo noogu jawaab ciidanka iyo dabaabaadka ay tignikada badan looma baahna waxaa loo baahan yahay 30 wiil oo habeenkii marto war 30 wiil maxay ragga qabataa rag tignikadiisa iyo beebayaashiisa iyo gaarayaashiisa wata waa riwaayad qorshe ciidan de waa inoogu jirto waa loo baahan yahay laakiin cududii markuu ay kululaato lagaga hortagi lahaa baa laga ma diyaarsana waxaan hadalka kusoo gaabanayaa war ninkaas run looma sheegin inuu isku keendiro uunbuu wada danna inooma hayo wuxuu taagan yahay waan idinka tegayaa haddaan idinka tago waxaan ka baqayaa in la yidhaahdo cali khaliif xagla toosiye yaa magaaladii ka saaray war xagla toosiye haddii la yidhahdo uu ka saaray oo hawshuba nagaga yaraanayso muxuu ku diiday dolaar iyo in candhaashabo tariixa magaaladii u dhashay ee deegaankiisa ka soo jeeday ee tuulada ahayd dhulbaantee gaar ahaan baanarsame ayaa laga saaray cararka xagla toosiye muxuu diidayaa adeero haddaadan runhan waa lagu cadhsanaya kii xun baa ku cadhsanaya kii wacan baa ku cadhsanaya kii dadka dam ayaa ku cadhsanaya dan ma haysid dadkana dhagar baad kula wareegaysaa cali saasaan leeyahay riwaayadana dadka gada dadka reer boodlow waxaan leeyahay war dadka reer boodlow war qofa jeclaan baa leeyahay aashaa nici doontaana ma ogin war ninkaas iyo matalan aniga oo kale ha iska jeclaanina dantiina arka dagaal u diyaargarooba cududiina diyaargaraysta odayaashii iyo waxgaradkii xaggaad ku ogtihiin ku maqantihiin mahadaladii yaryara ee la iska dabadeeyaa nin walba cidlo ku tuuray war siyaasiyiintana ku horamirantihiin iska daaye war danihiin iyo sidii laydinku yaqaanaad caamka ku ahaydeen ku uruura war isku soo dhawaada war sidaasaa sharafkeena iyo magaceenu ku dhisan yahay waxaan ku qabsan karnaa war sidaas yaa sharafkeena iyo magaceenu ku dhisan yahay waxaa jirta haddii guuldara timaado nin walba wuu ka cararayaa guuldaradaa timid haddii guulu timaadana habar walba way sheeganaysaa war si aynu guusha iyo wanaagga u wada sheegano aan isu nimaadno tashiga iyo talada aan sidaynu u gorfan jirnay dhulka loogu xariiqi jiray iyo raggii ka shaqayn jiray iyo kuwii colaaduna hays miskaansade ha isugu yimaadeen sidaasaynu colka inagu soo socdaynu ognahay wax kaga qaban karnaa saasaynu wax kaga qaban karnaa aniga gaar ahaan waxaan leeyahay inta nin somalilan sheegta nin somalilan afka somalilan ku hadlay iyo anigu laba hadday ku hadho labadaas ku wada noolaano waa dagaalamaynaa labadeedaas rag reer boodlo oo colaada iyo nabadaba caan ku ahaa
ayaa markay marxaladda arkeen waxay qaateen kelmadii cali dhuux aadeen adeerkeen cali dhuux aadeen ee ahayd ogaadeen hadduu duudsi qadaan u baxay ogaadeen hadduu duudsi qaybeen wardan ha u bixine cidna ha ku halaynina dalkiina iyo dadkiina ilaahay idinku idin abuurto ilaahay idinku idinku beer ilaahay subxaanahu watacaala idinku idin xilsaaray nimankaasu diiniinoma wadaan oo sharci ku socon maayaan baadil iyo haddii ilaahay ku siboogel yahay qabsisho iyo sharaf xumo iyo inagula soo socdaan oo inagu soo wadaan jihaadka shareecada islaamka anigaa bara culimo badan weydiiyey badan ninkii ku dhanta ee aaminsan inuu dalkiisa iyo sharafkiisa iyo magaciisa iyo dalkiisa u difaacayo iyo dunyadiisa wuu ku banaanyah jihaadkii la sheegay ee la yidhi wax iskaga celiya waa kaa duusigan iyo niyad xumadan iyo moral xumada iska qaada aynu cadowga iska dhicino aan iska diyaar garowno aan isku urursanaano waxaan leeyahay xagla toosiyey dadka dhagar baad kula wareegaysa adiga iyo kuwa kula socdaba xabad baanu haynaa si dhaqsale oo degdega baanu kaaga saaraynaa si dhaqsale oo degdega baa lagaaga saaraya saaka waa ku ognahay hargeysaad jirtaa waa kaa warhaynaa markii aad soo geshid dhibta iyo dhibaatada iyo qasqaska iyo waxyaalaha diinta iyo shareecada ku xun ee aad magaalada keentid waa ka warhaynaa laakiin annaga waxbana yeeli maayaan xabad baan ku haynaa si xabad adiga kuwa aada wadatid ee jaajuusiinta kuwa xabad dhubday waxaanu leenahay labadaba waynu iska saaraynaa midkoodna naf inooma hayo labadooda midkoodna naf inooma hayo xabad baynu iskaga saaraynaa diyaarna ina qolyaha ciidamada ee isku xidhan ee ayagu talada gacanta haddeer ku haya waxaan leeyahay sideenaasaynu isugu duubnaanaynaa sideenaasaynu diyaar u ahaynaa labadanina waa ismadhaantiya dhasheed labaduba waa isku cadow salkoodna labadaba kan kale waxba u arkin inuu Soomaaliland sarkiisna waa Soomaaliland labadaba xabad baynu iskaga saaraynaa labadaba si raganimada dhaqsale oo ninimada baynu iskaga saarnaa u turmayno waa inaadeerkeeni waa ehelkeeni waxba inoo yahay fulaan inoo yahay labadaba waynu iska saaraynaa ma kala jecel midka kale inooma dhaamo danna inooma hayo nabadgelyadan iyo danteena ku jirta labadaba xabad inaynu iskaga saarno sidaasaynu diyaar ku nahay taladeena iyo ciidamada iyo dhammaanteen inta heeganka ana ku diyaar garooba xabaduna qoriga idinku jirto waynu ognahay waxa inagu soo socda waynu ognahay waxa inagu soo socdo habeen iyo maalin sidaad u shaqaynaysaan inaynu u soconaynaa guuraha iyo garabcaro waynu u nahay baynu ugu diyaarnay ninna ugu daba fadhiisan mayno. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.